falanqaynta siyaasadda maanta waxaan ku eegaynaa xaaladda galmudug maalmin soo dhaafay oo dhan waxaa laga soo warramay galmudug inay qasan tahay ma dhammaan laakiin waxay maraysaa bartii ugu wanaagsaneed shalay waxaa dhacay shir ogaaska beesha cayra ku baaqay waa lagu tawfiiqistay siyaasiyiinta oo dhan mucaarad iyo muxaafad waa ay wada yimideen waana la hambaliyey waxaa looga hadlayay xaaladda galmudug marka wararkii ugu dambeeyey shirarkii wixii socda oo dhan waxa maanta barnaamijkaygu ah suldaankayga suldaan hooley egale hooley suldaan hooley soo dhow waa dhawaay iilameedii waan ku dhawaay runtii aad iyo aad aan kaaga mahad celinayaa maanta stuudiyaada weyn aad igu soo dhaweysay in muddana waan wada shaqaynaynay waxaan ka wada shaqaynay danta dalka iyo diinta Soomaaliya waa maasan tahay galmudug xaalkeeda maalmihii soo dhaafay bilihii la soo dhaafay dhaway qaseen madaxweynaha Soomaaliya mahad salaad liibaan sholo qoor saabir odayaal wada shirar waxba socday xagee wax marayaan waa sida uu sheegtay galmudug way qasneed odowaa liibaan shuluq oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mahad salaad laakiin way soo gabagabowday biyo meel godan bay iskugu soo ururaan sideedaba biyo meel godan bay iskugu soo ururaan galmudug shalay waxaa shiray beelaha maxamuud hiraab duduble iyo madarka ciisiraab habargidir waxayna gogashaas dhigay ogaaska cayr runtii waa lagu tawfiiqay runtii waran fiican baa ka soo baxay waa lagu midoobay galmudug waxay u baahan tahay ujeedadu waxay ahayd kursigan madaxweynaha wax isla leh oo galmudug saddex beel baa isla leh beesha wacaysle iyo oo abgaal gasha oo mudulood gasha iyo beesha maxamuud hiraab oo duduble ah iyo beesha madarka ciisiraab runtii intii la soo marana madarka ciise ahaye laakiin tanazul iyo tartana wuxuu kala dhaxay beesha maxamuud hiraab annagu maxamuud hiraab markaan nahay waxaa u soconaa kursiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dee habargidirna walaalayn wey anigu runtii anoo ka turjumaya beesha maxamuud hiraab suldaankii guudna ah labada reerna waxaan u sheegay in saddexda musharax beesha madarka ciisiraab habargidir oo uu ka mid yahay agaasimaha nabad sugidda niisa mahad salaad liibaan shuluq ninka la yidhaahdo oo ganacsada weyn ah iyo qorqoro kursiga ku fadhiya inay habargidir ninkay rabto farta ku fiiqan duduble sanadkan waa joogaha oo federaal u socona oo jaamay dalyaan iyo dumaana atee maanta habargidir aan caawinayna si ay Britain anaga noo caawiso kursiga federaalka waxaan way dad wada dhashaan nahay nin boodiyo rageed ba ninba maalin bay qawanta marka waxa weeye waxa ka soo baxay midnimo laakiin ayaga uma ay sameyn af waxaan rabaa inaan af u sameeyo maadaama suldaankii siyaasiga ay galmudug maanta musharaxa ay wataan galmudug kan galnisoor jooga iyo kan baxda jooga iyo kan maaragtay ceelbuur jooga iyo midka maaragtay cabud waaq jooga iyo midka maaragtay guraceel jooga iyo dhuusamareeb waxay wataan iyo ceeldheer jooga iyo ceeldheer waxay wataan liibaan shuluq waa ninkii dhisay dowladda hadda maanta kursiga ku fadhiso ninka la yiraahdo Axmed Kaariye qorqor ninkii dhisay qarash ku bixiyay dajiyo sideedaba ninkaas way maantana wuxuu rabo kursigaas warka cusuban wada waa war runa waay oo loo noqonin oo biyo kama dhibcaana wuxuuna inta u qabanayay inay galmudug isku toosto oo runtii meel fiican u ka qabto maanta waa maalintiisii waa maalintii beesha sacad waa maalintii beesha qumis waa maalintii liibaan shuluq waa maalintii madaxweynaha federaalka Soomaaliya adiga miyaa yiri mase waxa yiri habargidiraatin waxa way habargidir ma dhihin habargidir waxay ka mid tahay afar beelood habargidir la yiraahdaa waxa weeye nimanka la yiraahdo sacad saleebaan cayr iyo saruur waa gartay kuwa wax tabanaya xataa ayaga dhexdooda laakiin taa hoos u sii gali maayo waxa weeye waxa yiri umada degta galmudug oo aniga suldaankii guud aan waxaan rabnaa liibaan shuluq waa sababeene liibaan shuluq beel walba wuxuu siiyay lacag 20,000 ilaa 30,000 u dhaxayso oo abaarta ay uga baxaan Soomaaliya maxaa Soomaaliya way dhimanta ay abaarta uga baxaan wuxuu kala sameeyay 1,000 booydoodna waa dhiibay oo biya dadkii jilaalku kala soo baxay habartii arig wada waxay leedahay liibaan shuluq waan rabnaa beelaha shintada ka hor beeluhu hadda dhimata wax ma ka qabtay isaga wax badan uu ka qabto waa ka qaban karaa sababtoo waxa way Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii xog leh xaajo toosta liibaan waa nin xaqila waa nin geesiya waa nin habargidira waa nin hiraaba waa nin Soomaaliya waa nin siyaasadda aad u yaqaan dhaqaalana u haysta shalay shirki ka dhacay meeshan Fayrus la yiraahdo aan ku dhameeyo waa nin marka sameey kara guddigii
ama maaragtay garsoorayaashii hawshaas qaba lahaa iyo ciidamadii qaba lahaa dadkuna fiiri cayrna wax ma dilo dudublana wax ma dilo saleebaan wax ma dilo maryaxaana ma dilo dir wax ma disho inta qabiil horta wax disha oo la sheegshay intaas nin baa wax dilay waxaa dilay ina hebel oo ina heblaayo ah meeshaas ku dilay fal dambiyadu galay in la rooga gareeyo oo hay-adahaas ay raadsadaan halkaas ma gaarsiisana garaadka ma gaarsiin garaadkana waa gaarsiisan yahay laakiin ninkii ficil iyo qool fulilaha liibaan shuluq sidaba aad iyo aad warno liibaan maxaa ku harta adiga liibaan aniga waxna kuma arkin weligeena lama kulmin magaca ilaahayna weligay hal doole inaan ka qaadin laakiin waxaan ku jeclahay raganimada iyo shaqada iyo shaqo yaqaanka iyo dad jaceylka iyo siyaasi soo dhisaya siyaasi weligay ma gartay markan xagga dhigna mahad salaad iyo qorwar xageegis horta aan kala qaadno mahad salaad iyo la dabca ku jiray sax way mahad salaad iyo qorqor waa nin soo shaqeeyay waxa soo dhistay walaalkiisa liibaan shuluq uu shaqeeyay shaqo fiican qabtay waxa la rabaa taariikhdii in la geliyo galmudug ninkii fariisiyay waa galmudug ambassador waxa uu leeyahay sagootuna waxa uu leeyahay inuu xilka wareejiyo waxa uu leeyahay waxa soo haray mahad salaad waa nin raga aqoon-yahana geesi ah nabadoon ah dowladii dhaxan ka maarmin iyo hay-adii nisa nabadgelyada gobolka banaadir meel ka sareysana ma jirto madax meel ka sareyso mala dila waay koofi baa ka sareysa koofidii dowladda waa mahad salaad halkiisa aanu joogo annagaan yeelinba anoo sugaan hoolaya inuu ka taga nisan aan yeelin runtii waxa waaye ninkaasi shaqo fiican buu haya mahad cid waa badantay hadii mahad salaad la yiri federal kama maarmo cidii ceyrka xagee kala la geeyna ko kala damac ku waxa weeye hadii xataa sida u dhigta aan ku raaco ceyr waa dad badan waa dad ciidan ku fiican saraakiil ku fiican nabad sugid ku fiican تماشي laga qori lahayba waay boqolkiiba 50 ayuu siinaa odayga siyaasiintoodana hadda waxay xildhibaan u lahaayeen way haystaan waxay wasiir u lahaayeen way haystaan wax ziyaada horta siimay haduu maasala madaxweyne noqdo oo galmudug ka noqdo wax badan ceyrka lumay laakiin hadda wax badan ceyr haystaan shaqooyin badan haystaan oo lagu qabsan kari shirkii shalay ma lagu soo qaaday arrintan shirkii shalay waxa lagu soo qaaday siyaasi iyo dhaqan in lagu midoobo cidii la soo saari lahaa oo galmudug xukumi lahayd shirkaasna waxaa dhaliyay suldaanoole aniga intaan hadlay aan habar gidir iyo duble ayaa kursigan wada leh waxa isla xaggayga dhig wali hurdo ku jira dublena waa fadhiya wali ma istaageen habar gidir waa taaganta nimankan taagan hala sugootiya hadda sugooti weysaan anigu liibaan shuluqan wata liibaan shuluqan keena bishardi ma liibaan shuluq inuu lacag siiyo bishardi ma horena iimas laakiin waxaan rabaa yaa kala wata markaad iido waxay la wata galmudug oo mariixana ay la wata oo doonay waxay la wata ceyr oo ah ayaan le oo weliye dheeraa ka dhashay ninka la yiraahdo mahsalada ila wata waxay la wata saruura ila wata wax dira ila wata sheeqala ila wata ninka waa la wata marka meel aan uga haran male ninka la yiraahdo liibaan shuluq sida dadkii yaa wata marka suldaankuna waxay dadka wataan maani waxay dadka diidayaan waa diidaa haddaan diinta lagu inta garatay haddii mahsalada garawaayo waray qorqorna garawaayo maxay yeelaysaa horta mahsalad waa nin dawlad yaqaana sida loo shaqeystana yaqaana galmudug ka soo shaqeyn jiray ragii kala furfuray suufiyadii iyo dajiyo waay mahad ninka la yiraahdo liibaan shuluqna dhaqaaluhu bixinay makaaniga wax kala furfurayana oo kiyaawaha ingiriiska oo nooc walba la geynayna mahasalaado ninka kor ka saaran baabuurka oo darawalka ka steerinka ayana wuxuu ahaa axmed kaariye qorqor runtii ninka hagayay anigu ahaa marka siyaasiyiinta beesha habargil ay leedahay oo afar beelood sheegtay afar min afar 16 halka 15 waa xalkooda ma la socdaan waxaan mas'ala aska wada runtii beesha habargil waxay leedahay 15 xildhibaan beesha maxamuud hiraabna 12 ay leedahay mursada wata mursada wuxuu rabaa liibaan shuluq sideedaba de abaartii uu ka bixiyay mugsoonta samad faham dirtum yaa rabtaa dirtii markaa la kulanto liibaan shuluq rabnaa leeyahay suldaan anoo dadkaan la fariistaa mugsoonta wariyaan yaan ku dhawaaqay aan lagu dirsanaa wadataa maya aniga howlaan la dirsan laakiin aniga isku dirsadaa jiro way dadkan weydiina dadka ra'yigooda iyo cidda u roon iyo oo berita aniga igu caasinayn ayaan rabaa hadday nin kale ii diraan waxaan leeyahay maya arrintan qorqor kala fariisatay qorqor aniga laba jeer aan la fariistay qorqor horta waa nin ballan leh waa nin diin leh waa nin geesiya wuxuu yiri aniga haddii nin aan ku aamini karo oo galmudug wallaahi xafiiskiisa fadhin waan u dhiibayaa u dhiibi mayside oo galo waare anuu hal nin ayaan rabaa inaan ku raa waryaa ka joog ninkaas waa kuma yiri waa ninkii adiga ku soo dhisaare yaa waayo ninkaas adigana waa taqaan anna waa aqaan ilaahina waa yaqaan
Soomaali fahma liibaan shuluq ah hal liibaan shuluq waa yar hadda xar dheer u jooga maalinta xar dheer u jooga xiriir la ila soo sameeyay absolutely ani madaxweynihii galmudug qoorqooraan la fadhiya oo aniga ay liibaan shuluq aan soo dhisnay anoo is oqon anoo liibaan shuluq isma naqa waliga ma wada fadhiyo ilaa hadda waliga isma salaamin waa wax dadku aad ka soo ogaatay dadkii aan raba ninkii dadkii aan raba mugsanta waxaan wiilkayga liibaan shuluqa waa nin fiican xar dheer ha sooriyay wuxuu raba ha siiyo anuu maalintii doorasho tagto ee jiq isku noqoto oo maxamuud iyo madarkiis madaxa isla galaan oo madarkiis madaxa isla galo subaxaasaan firimbiga u yeerina arbitran Georgian shirkii shalay ka dhacay hotel Faris dulucdiisa waxay ahayd galmudug in loo tartamo yes tartan liibaan ma ogolyahay mas'alada dhabar ku saaran yahay horta waxa weeye shirkaas waxa midnimo iyo tafaraaruq in la iska ilaaliyo iyo in lagu tawfiiqo in loo tartamo waxbuu daaray shir walba adduunka waxa weeye dhexdhexaada ay ma soconayso shirkaas wuxuu ahaa u daarnaa ninkii aqli leh dee hadalkeygii hore madarkiisow soo saara nin annaga maxamuud hiraab naga gadmi kara galmudugna ka gadmi kara haddaad ka baqaysaana waa liibaan shuluq umadiyaa wadata ninka la yidhaha mahasalaadna lama joogo waa koofidii dowladda waa nabadoonkii meeshaas ceyr iyo asagaba way ku filan tahay intaan shidaalka soo saaranayna noo kaadiya ninkaa odaygaa ho shaqeeyey oo qoorqoor oo ragga labaxaniyoodka magaaladii dhiso wadooyin dhiso qurxiyey ee ah maamul goboleedka ugu quruxda badan caasimada ugu quruxda badan maamul goboleedyada waa galmudug war garow ii kaadiya garow waa usoo noqonaa way dhisantaa laakiin galmudug ka qurux badan muraayada ah ila lacagay leeyihin nimankan maqsoontahay hawiyaha lacagay leeyihin way maalgasteen laakiin nimankaas waxay maalgastaan ma dowladii waxay dhistay iyo adduunka wax laga soo qaraabo way maqsoonta nimankan hadda aan kuu sheegay hawiyaha guru cel sida u dhisteen maarta meel cilaayay 2 sano waxay ka dhigayeen wadanal marka ninkaasna waxaa la rabaa in la sagootiyo jagadiisa la khalkhaaliyo meel fiican maxaa ka qoraa marka ugu dambeyntii maanta waxaa laga qoraa horta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xaq wuxuu leeyahay madaxweyne walba maamul goboleedka inuu soo xulo laakiin xaq waxaan ugu leenahay asaga markuu xaq u yeesho inuu madaxweyne soo xulo xaq waxaan u leenahay ninkaas hadduu nin naga gadmayo inaan jangarino miisaan saarno shaybaar gelino okay markuu noqdo aan ila madaxweyne waa okay li'annahu madaxweynaha warqadda uu saxiixo maaliyadday soo martaa asaga marka dambe saxiix taajirka shirkadaha waaweyn dahabshiil iyo hormuud lacagta markuu kuu saxiixo system ay soo maray marka u dambayso saxiix musuq macaan marka annaga madaxweyne waxaan ka rabnaa ninka wadato waa wadana waana ognahay waa liibaan shuluqan shaybaar saarno aan baarno nadiif markuu noqdo waa saxiixana maca salaamo galmudugna way rabtaa waa maasanta aad u maasan yahay kaas waxa daawadayaal Suldaan Hooley